halkani waa qabalayga durdurka ee santarka goobta ee degmada Harwe dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waxa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay murashax xildhibaan golaha baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya Kamaal Xaaji Maxamuud oo ka sharaxan xisbiga BB barwaaqo dalka Itoobiya murashax xildhibaan golaha baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya Kamaal Xaaji Maxamuud iyo sidoo kale 6 murashax oo ku sidkan isla markaana u taagan xildhibaano golo deegaan ayaa maalmihii u dambeeyay waxay socdaale kala duwan ay ku gaala bixiyeen deegaanada goob doorashooyinka oo ay dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya markii murashax xildhibaan golaha baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya Kamaal Xaaji Maxamuud uu soo gaaray qabalayga durdurka ee santarka goobta waxa soo dhaweyn ballaaran halkaas ugu sameeyay bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaankaasi oo ruuxaysay caleemo qoyan iyo hadallo soo dhaweyn u badan waxaan intaasi kadib murashax xildhibaan golaha baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya Kamaal Xaaji Maxamuud iyo sidoo kale 6 murashax ee ku sidkan loo galbiyay goob gaar ah oo loo diyaariyay waxaana barbilowga bulshada kala duwan ee halkaas ku sugnaa halkaas kala hadlay gudoomiyaha degmada Harwe gudoomiyaha degmada Googti gudoomiyaha qabalayga durdurka maayirka degmada Wajaale iyo sidoo kale maayirka degmada Wabare iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxayna dhamaantoodba bulshada ay ku booriyeen inay u diyaar garoobaan doorashada murashaxiinta ka sharaxan xisbiga barwaaqo hormoodka u yahay murashaxa xildhibaan golaha baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya Kamaal Xaaji Maxamuud marka 7 xubnood ayaa degmada Awbare guud ahaan dhulkii la isku oran jiray laga soo bilaabo maamulka magaalada Togwajaale ilaa degmada Harwe ilaa degmada Awbare saddexdaas oo isku jira ayaa waxa laga dooranayaa 7 xubnood golaha wakiilada baarlamaanka waxa loo dooranayaa 7 xildhibaan Kamaal Xaaji oo matali doona guud ahaan maamulka Togwajaale degmada Harwe degmada Awbare oo dhan iyo degmada Harwe iyo degmada Dambal ilaa 4 degma laga dooranaya kuwii wadada sameeya ee ummadana wax u qabta Allah idinka dhigo anu tilmaamu baan idin siinayaa ininka waxa weeyaan codkaynu bixiyo wax mucaarada qabalayga durdur malihin firi laga heli maayo male codkada waa la sida xisbiga barwaaqa codka la sida waa la siinaya mucaarad malxiga qabalayga waxaan filayaa santarkana joogno qabalahana joogno aan idhaahdo santarka goobta oo simaada waxa weey inaanay wax mucaarad ku jirin baan filayaa 100% ay dadku qabalaha waxa nooga qiimo badan guud ahaanba sida qiimaha badan qaayaha badan inaad maanta sida quruxda badan leh aad noogu soo dhaweysaan qabalaha durdur ee santarka goobti aad baan farxad aan u dareemeynaa aad baan inaguna u mahadsantihiin sidoo kale waxa madasha ka hadlay waxgaradka kala duwan ee deegaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Axmed Waadan waxaana u duceeyeen murashaxa xildhibaan golaha baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya Kamaal Xaaji Maxamuud iyo sidoo kale murashaxiinta kale ku sidkan waxaan kale wax kale uma soo bixin xildhibaanadeena dhammaystiran si aan u soo dhaweyno ma soo baxnay aanan u dhiiri galino insha Allah waad soo baxaysaan waan ii ducaynaynaa dadkana waad arkaysaan jidku siduu yahayna waad arkaysaan wax inaga maqani ma jirto hataa haddaad samayn kartaan waxaad samayn kartaan markaad soo baxdaan yeeritaanka idin yeernay aadna soo ajiibteen baan idinku mahadnaqaynaa marka hore waxaan musharaxiinta ugu ducaynaynaa inuu ilaahigay xilkaa ku guuleeyo oo aad ku guulaysataan dhammaantiinba waxaan idinku ducaynayaa ilaahay idankii iyadoo curadkaygiina uu iga dambeeyo ducayn doono waxaan idinku ducaynayaa inuu ilaahay xilkaa idin fududeeyo inuu ilaahay idin sikhiro marno annagu reer durdur haddaan nahay mucaarad ma lihin guntiga gabagabadii waxaa madasha ka hadlay murashax xildhibaan golaha baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya Kamaal Xaaji Maxamuud waxaana bulshadii kala duwaneed uga mahadnaqay soo dhaweyntii ballaarneed ee halkan ay ugu sameeyeen jirkiisa qaraamada jirkiisa Allah u ziyaadiyo waa hogaamin adag oo aad reerka u shaqeeyay ilaahay meel kasta inuu gaarsiino ugu ducaynaa aad iyo aad ku mahadnaq gaadhaan marka deegaanka waxa lagu yaqaanaa soo dhaweyntaas idinka maadaama maanta in mooranayna doorta waana doorateen hadana doornamaba yeedeenba inaadna doorateen waana doorateen ducad noo yeedeen marka na doorta ma oranaya qaabka u dooran lahayd ma ni tilmaamaya oo dad ma tiinta iniga taagan ma dooranaa mise maya in la ni tilmaamo bad u baahantiin tilmaamtuna waa say u sheegeen oo 7 qof ee halka ku aragtay indijisan warqad kasto la ninkan haba ka dhaafina
haddee tu saddex timaadana sii raaciyoon warqada sawirada iyo buluugga aragtaan ha dhaafina buluugga unishin ha qabato keenna waxbarta keenna baraba xitaa dad fahma waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV qabalayga durdurka ee santarka Gogti ee degmada Harawey dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya